tan hubka iyo saanada ciidan waxa weeye dowladda iskale wixii magac ciidan ku soo baxay ama magac dowladeed Puntland ku soo baxay Puntland iskale in saanadaasi Puntland magaceeda ku soo baxay oo magaceeda ku yimid oo ma taqaana magaceeda ku yaala meesha winday hanti dowladeed ee tahay taa Suldaan Jaamac Suldaan Axmed Jaamac oo kamid ah isimada dhaqanka Puntland gaar ahaan isimada gobolka Bari ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Suldaanka ayaa ka hadlay xilka qaadistii madaxweynaha dowladda Puntland uu ku sameeyay agaasimihii hore ee hay'adda BSF General Maxamuud Cismaan Diyaano isagoona tilmaamay inay muhiim tahay in la wareejiyo dhammaan agabka gaadiidka iyo saanada ay isticmaali jireen ciidanka BSF. magacaygu waa Suldaan Jaamac Suldaan Axmed Jaamac Barre kana mid ah isimada Puntland gaar ahaan isimada gobolka Bari waxa jira ayaamahan xogaa xaaladaha ka jiray gobolka Bari siba Boosaaso magaalada Boosaaso waxa weeye arin aad iyo aad mataqaanaa leh arin aad u adag weeye arinta ka jirta Boosaaso taliyihii xilka laga qaaday oo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qaaday taliyaha Maxamuud Cismaan Diyaano taliyihii BSF-ta arin waxay noqotay xogaa arqalad iyo mataqaanaa culeyskeeda leh xilliga kale lagu jirana waa xilli doorasho marka maadaama xilli doorasho ay tahay in wax badan la ilaaliyo oo amniga weeye dowladda Puntland madaxweynaha ugu sareeya waxa weeye waxay leedahay golo wasiiro golo baarlamaan waxay leedahay golo deegaan gudoomiyaal gobollo agaasimayaal dowladdu waa dowlad aad u ballaaran marka maalin kasta marxalad baa iska taagan marxaladda marka waxa la rabaa in looga baxo si nabad ah taliyaha xilka laga qaaday digreetu madaxweynaha soo saaray taliyihii Maxamuud Cismaan Diyaano xilka ka qaaday madaxweynaha arintaas waxay noqotay arin ay soo baneeyeen markii arinta ay dhacday jiidi dagaalka lagu jiray cadawga Puntland waxay leedahay garanaysaan cadow bay leedahay waxa weeye mid banaanka bay leedahay mid gudaha bay leedahay inta waxay mataqaanaa cadawga in la dagaalamo oo mataqaanaa cadawga la iska ilaasho taliyaha guud ee ciidamada madaxweynaha ah dalkaana waxaan rabnaa oo nabada muhiimadda waxay tahay dalkoon nabada in xil wareejin waxa weeye ninka la yiraahdo Maxamuud Cismaan Diyaano taliyihii hore iyo Asad Cismaan Diyaano labada nin oo walaalaha ah si sharaf leh oo qurux badan bay u soo shaqeeyeen haddana si sharaf leh oo qurux leh in xilka u wareejiyaan oo ay u turaan dadka mataqaanaa dalka jooga shacabka is adkeyntaas waxay keeni kartaa iska hor imaad marka inay iska hor imaad u yimaado waxa baajin kara isku tanaasul ilma Cismaan Diyaano taliyihii hore Maxamuud Cismaan Diyaano iyo Asad Cismaan Diyaano ha tanaasulaan dalka hoo turaan dadkana hoo turaan wax badan ha qiimeeyaan si kasta oo dagaal lagu baajin karana inay ayagu laftigooda tanaasulka ayaga maanta laga rabaa inay tanaasulaan is adkeyntu waxa ma soo kordhiso inaad is adkeysid waxa ma soo kordhinayso madaxweynaha waxaanu ku taageersanahay dalka hogaamintiisa aan ku taageersanahay xaqiiqada waa sida madaxweynaha anagu waa taageersanahay dalka asaga xukuma asaga u taliya cidoo doono xilka ka qaadaya cidoo doono mataqaanaa u arko u dhiibaya siyaasadda ba sidaas oo qor isku dhiiba tan hubka iyo saanada ciidan waxa weeye dowladda iskale wixii magac ciidan ku soo baxay ama magac dowladeed Puntland ku soo baxay Puntland iskale in saanadaasi Puntland magaceeda ku soo baxay oo magaceeda ku yimid oo mataqaanaa magaceeda ku yaala meesha winday hanti dowladeed ee tahay taa laakiin hantida sida mataqaanaa qoryaha iyo rasaasta iyo agabka kala duwan iyo baawurta iyo wax agabka kala duwan oo magac dowladeed markii hore ku yimid oo Puntland magaceeda ku yimid oo magaca Puntland lagu isticmaalayay hadda taa Puntland baa iskale waxa weeye hantida dowladeed bay noqonaysaa laakiin hadda hadii la yiraahdo hanti dowladeed shakhsiyaad ha qaataan hadii la yiraahdo maalin kasta nin taliya xilka laga qaaday wuxuu leeyahay hantida tan anaa iska lahayo meel kala imid marka wixii mataqaanaa hanti ciidan qoryaha gawaarida agabka mataqaanaa ciidanka nooc uu doono iskugu jiro waxaan qabaa wixii dowladda eelada magac dowladeed ku yimid Puntland in leeyahay lagu wareejiyaa